بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa أحmed محamed jaamac maadada afka Soomaaliga ee fasalka 8aad waan rabaa hadii Ilaahay idmo in aan halkan ka soo jeediyo ardayduna ay halkaas waxa weeyay la ku ron yahay casharada ay kala socdaan cutubka 8aad hidaha iyo dhaqanka Soomaalida baan ka hadlaynaa laba eray baa meeshaas ku jira labada eray oo hidaha iyo dhaqanka ah waa cutubku ka hadlaya waa cutub aad u ballaaran waa cutub ardayda dugsiga sare iyo ardayda fasalka 8aad ba ka dhaxeeya oo ardayga 8aad kana qayb ba uga qoran si uu hidaha iyo dhaqanka wax uga barto laakiin guud ahaan cutubka waxa laga hadlaa haddii Ilaahay ku ron yahay oo si faahfaahsan looga hadlaa dugsiga sare hidaha waa wixii aynu inagu leenahay oo aynaan cid kale la wadaagin sida suugaanteena oo kale awooyaasheen iyo ayeeyooyinkan aynu ka dhaxalay halka dhaqanku uu yahay waxa aan ummadaha kale kaga duwanaan karno oo ummad kasta dhaqan bay leedahay iyo caado u gaar ah oo soo jireen ah oo waxa weeye ay ummadaha kale kaga duwan tahay cutubka marka tusmadiisii wataas 8.1 wuxuu inoo sheegayaa 40 meeso xoolaad sida la isugu magacaabo xoolaha labka iyo dhadiga xoolaha muddada ay sidka qaadaan iyo ilmaha ay dhalaan marka ay 100 gaaraan iyo codka ay sameeyaan waxtarka xoolaha laga helo iyo weydiimahaas casharka ka dambeeya oo ardaygu uu hadhow ka jawaabi doono intaas baan waxaan rabnaa cutubkeenan inaynu kaga hadalno haddii Ilaahay idanka ka dhigo 4 meeso xoolaad ee Soomaalidu dhaqato waxa ugu horeeya meesiga la yiraahdo geela meesiga la yiraahdo waa meesiga ugu qaalisan xoolaha ay dhaqdaan waa meesiga ay sida fiican waxa weeye Ilaahay ku ron yahay ugu dhaartaan oo ay aadka u dhaqdaan marka odayaashii waxa weeye Ilaahay ku ron yahay geela dhaqan jiray waxay oran jireen marka gabayadooda aan ka soo qaadano oo kale sida geelu adkaysiga ugu leeyahay cimilooyinka qalafsan ee dalka oo xoolaha kale uga adkaysiga badan yahay waa dhabarka seedaha ku yaal sidigta dhaameele haddii aanu dhadhaab adag ka bixin laguma dhaarteen marka taas waxay muujinaysaa inuu aad ugu adkaysi badan yahay cimilooyinka waxa weeye adag ee Soomaalida waxa weeye dalkooda arigii baa ku xiga arigu isagu waxa weeye idihii iyo riyihiiba waa uu isugu jira marka hadhow baynu kala qaadqaadi doonaa waxaa kaloo ka mid ah lo'dii waxaa kaloo ka mid ah iyaduna gamaankii 4 marka lagu magacaabay oo magaca guud oo 4 mees xoolaad la isku yiraahday waa 4 halkaas inoo ka muuqdo hadii Ilaahay ariga oo kale ninka ariga dhaqda aad buu arigiisa waxa weyn walba meesiga uu isagu markaas dhaqdo buu meesiyaasha kale aad uga faaniya oo uga sareysiya marka ninka riyaha dhaqdo oo kale tusaalahan hadaynu soo qaadano laba riyood oo kale laga yaabaa goor casar liiqay tahay oo qoraxdu ay si gaaban tahay laba hardamayo oo kale inuu arko rigeesale iyo mid aan geesa lahayn si marka uu ugu garnaqo kala marka qaarkood wuxuu yiraahdaa garoy garada adna giiroy ka gun weynida gardarada yaani labadii riyood si uu ugu garnaqo kale meesiga idaha oo kale abwaanka waxa weeye Soomaaliyeed Ustaad Mursal oo kala soo qaadanaa gabay idaha ku amaanay wuxuu markaa leeyahay dhammaankiyo baraarkay dhashaa saaran dooyaha dilaalkeeda kaliya dibiro lala wareeray marka waxa weeye waa aad bay waxa weeye meesigaasna waxa weeye dilaa ku ron yahay ay Soomaalidu u amaanaan waxa kamid ah loodu iyadu waa meesiyaashay kamid tahay iyana marka inta badan dadka looda dhaqdaay baadkii iyo biyihii bay aad u raadiyaan waa meesi aad biyaha waxa weeye ugu nugul oo waxa weeye biyaha muddo dheer ka qaadi karin saadarteed marka hadii aad looda dhaqashadeeda aad rabto oo waxa weeye waa in biyaha aad ugu roonaataa sida aad ka garanayso mahmaada Soomaaliyeed oo leh loodu labada horana biyaha kula jiro labada dambana geedaha kula jiro gamaanka oo kale halkaas waxa kaaga muuqda faraskii iyo waxa weeye Ilaahay ku ron yahay iyo dameerihii baa ka muuqda
marka fardaha oo kale to aad baa waxa weeye dilay ku runyahay Soomaalidu amaanan oo yaradka oo kale ta iyo xaraga u bixiyaan waxa weeye waa ku dagaalamaan waxa weeye dilay ku safarada dheer bay ku galaan iyo socdaalada aad ku dheer marka iyadana maxaa soo qaadanayna markay amaanayaan ku geela dhaqda oo kale waxay yiraahdaan haddii gelin hore geela lala tago oo warku isgalo karnugaaleed gabacyeeyo marka orodkiisa ay halkaas aad ku faaninaya gamaanka fardaha dameeraha oo kale waxaan iyagana fiirinaynaa hawleeda isaga loo soo qaato kale oo lagu amaanayo wuxuu leeyahay markuu de gacalkiisa iyo uu ka waraabiyo oo waxa weydii la ku run yahay oo ay u dhaansan tahay oo biyaha ugu soo qaato wuxuu leeyahay gaagaabsho guradaada gacal laga waraabsho gacantaydu gaadhaayo gacal laga waraabsho waayahay noocyada marka hadii la ku run loo kala qaado meesiyada xoolaha geela ugu horeeya waxa ku xiga lo'dii waxa ku xiga riihii idihii iyo fardaha iyo waxa weydii la ku run dameeraha iyo baqraha afartan mees xoolaha todobada nooc oo qayb xoolaha bay isugu jiraan marka waxaan ugu hormarinaynaa oo soo qaadanaynaa geela iyo lo'da oo kale marka waxa weydii la ku run la israaciyo waxa lagu magacaabaa ishkin baa leeyahay waxa soo raacay riyaha iyo waxa weeye hadii la ku riyo idahana iyagana waxa la isku yiraahdaa ari waxa ku soo haray riyaha iyo lo'da iyo riyaha waxa la isku yiraahdaa geesley waxa ku xiga iyaguna fardaha dameeraha baqlaha iyaguna waxa la isku oranayaa gamaan baa la isku oranayaa marka la israaciyo magacyadooda ariga iyo lo'da gamaanka afartaas qaybood oo ariga oo laba ah iyo waxa weey dirka lo'da iyo gamaanka oo saddexana shantaasna maxaa la isku oranayaa iyagana qoobley ama raafley geelu isagu marka meesha waa ka maqan yahay wuxuu meesha uga maqan yahay geel waxa weey isagu cagtiisu waa ay balaaran tahay cag balaaran buu isagu leeyahay halka inta kale oo waxa weey shanta kale ay isku raaceen ay qoob leeyihiin iyagu waxaraha oo riihu ay dhalaan iyo naylihiina iyagana maqal baa la isku oranayaa waa yararkii weey gamaanka lo'da iyagana maxaa la isku oranayaa nugul waxa nugul marka iyaga loogu bixiyay waa muddo dheer waxa weey xoolaha aan muddada dheer biyaha ka qadi karin weey xoolaha aan muddada dheer biyaha aan ka qadi karin weey marka iyagu waxa weey saasay waxa weey magaca nugulka ay kula bixeen geela iyo lo'da iyo riyaha iyo idaha halkaana afartaasna maxaa loo bixiyay iyagana afarta wariyaalood baa loo bixiyay waxay afarta wariyaalood marka afartaan ugu bixiyeen meesha waxa ka maqan gamaankii baa ka maqan gamaanka haduu meesha ka maqan yahay waxa halka kaaga muuqata waa inta cadka iyo caanaha laga helo gamaanka oo kale to fardihii iyo dameerihii iyo baqlayhi buu isugu jiray sidaan soo sheegnay saadarteed waxa weey iyagu caanana marka waxa weey iyo cad labada midna ugu xilan maysid laakiin siyaabo kala looga faa'iideystaa oo dameerihii biyihii baa lagu dhaasan karaa oo waxa weey dilay ku riixay xaabadii baa lagu soo gurtaa waxa weey dilay ku riixay fardihii waxa weey dilay ku riixay dagaaladii iyo waxa weey socdaaladii dheereera iyo waxa soo dhan baa loo adeegsan karaa waxa weey dilay ku riixay marka iyaga magacaas waxay kula baxeen waa cadka iyo caanaha waxa weey dilay ku riixay laga helo waxa halka kaaga muuqdo shaxankan marka aad ku aragnaysa iyadana labkii iyo dhadig iyo xoolaha marka halkan nooci xoolaha kugu qoran halkaasna waxa kugu qoran dilay ku riixay labkii iyo dhadigii marka halkaas iyagana waxa weey dilay ku riixay qaabkaas buu shaxankaas ku tusayaa shaxanka ku xigay wuxuu ku sheegayaa nooca xoolaha oo halka kugu qoran muddada sidka ilmaha inta ay qaadaan iyo ilmaha ay dhalaan magaca loo bixin doono marka ilmaha ay dhalaan magaca loo bixin doono marka geeli muddadiisa waa taas 13 weeye lo'dii waa 9 ariga oo idiri isugu jira waa 5 farduhu waa 10 dameeruhuna iyaga ugu si dheer marka waxa weey dilay ku riyahay waa 4 iyo 10 dhinaca kalena waxa ku qoran ilmihii ay dhalaan magacyadooda halkaas marka dameeraha khaylna waa qoran yahay qaylna waa qoran yahay marka waxa weeye waxaan af inagu aan leenahay weeye oo macnayaal badan leh oo waxa weeye lahjadaha dadku waa ku kala duwan yahay marka waxa laga yaabaa in gobol basi looga yaqaan waxa ku xiga shaxanka kale oo isaguna ku tusaya nooci xoolaha oo halka kugu qoran iyo boqol markay xoolaha sigaaraan iyo codka ay sameeyaan xoolahaas marka geela oo kale olol baa la qoray banaaxi banaaxo danan iyo munar halka waxa kugu qoran codka ay sameeyaan dhanka kalena waxa ku qoran iyadana kadin baa geelo markuu boqol gaar la yiraahdaa loodii waxa la yiri fadhi arigii isagu idii isugu jiray waa tiro halka fardaha la yiri wagan waxa ku soo haray dameeraha in ay banaan tahay booska laga rabay marka ay boqol gaaraan
inta inagu xoolaha aan dhaqano oo waxa weeye cadka iyo caanaha aan ka helno baa inta badan tiradooda la fiiriyaa marka dee reer ay 100 dameer ay u joogaanin waxay la tahay waa aad bay u adkaanaysaa inay seexdaan saa darteed marka halkaas waxa weeye dila ku runay qaabkaas baa iyagu waxa weeye dila ku runay ay magac haddii lacala ay dhacdo in magac loo sameeyana dee dhinaca gamaanka haddaad 100 ay dhacdo inaad 100 dameer aragto nin ay u joogaan oo kale dee dhanka waxa weeye dila ku runay gamaanka oo ay raacsan yihiin oo waganka aba lagu magacaabay halka waxa ku soo haray waxtarkii xoolaha aan dhaqano waxay noo leeyihiin waxtar bay noo leeyihiin aad u fara badan aan la soo koobi karin laakiin qodobada halkaas ku qoran baa ugu muhiimsan cadkii iyo caanihii gaadiidkii haddii ilaahay ku roon yahay subaga oo caanaha laga helo saantii xoolaha oo la iibiyo ama waxa weeye dila ku siyaabo kale looga faa'iideysto in la iibgeeyo neefkii isaga oo nool markaa oo lagu soo bedesho wixii markaa loo baahan yahay dhismihii reerka cusub marka la dhisayo oo kale iyo wixii la mid ah waxaa kugu soo haray halkaas kaaga muuqda iyadana layligii casharka su-aasha u horeysa waxay ku leedahay waa kee meesiga loogu jecel yahay xoolaha Soomaalidu ay dhaqato marka su-aasha labaadna si ay u tarmaan xooluhu sheeg baa la yiri neefka lab oo lagu daro meesi kasta neefka loogu daro si uu u tarmo baa waxa laga rabaa inaad sheegto magaca loo yaqaan maxaa loo yaqaan baa la yiri loodu markii ay 100 gaad su-aasha u dambayso afraadna waxa weeye sheeg laba ka mid ah waxtarka geela marka laga yimaado cadka caanaha iyo gaadiidka marka saddexda laga yimaado waxtar kale oo geela uu leeyahay baa sheegaysa marka halkaas baa casharkeena koowaad uu inoo ku eg yahay haddii ilaahay idmo